jimcihii hore maanta oo kale ayay ahayd markii uu dhacay weerarkii dadka muslimiinta ah lagu qaaday ee dalka New Zealand. dadkii walaalaasay waxaana murugada dadka muslimiinta ah si weyn oo aad loo hadalhayo la qaybsatay haweeneyda ra'iisul wasaaraha ka ah dalkaasi ee Jacinda Ardern. maalmihii la soo dhaafay waxay booqatay dadkii ay eheladooda weerarkii argagixiso ku dhinteen iyadoo wadata dharka lagu yaqaan haweenka muslimiinta ah si ay ixtiraam ugu muujiso muslimiinta la gumaaday. sidoo kale waxay amartay in masaajidda lagu rakibo mikrofoonno waaweyn maanta oo jimco ah si aadaanka salaada loo gaarsiiyo dalka oo dhan. kalfadhigii baarlamaanka dalkeeda ayaa lagu furay aayado qur'aan ah iyadoona salaanta islaamka ay ku bilowday hadalkeedii. maanta markii salaada jimcaha la dukaday masaajidda dalkaasi New Zealand ayay Jacinda Ardern waxay hadalkeeda oo tacsi iyo baaq islaamka oo dhan u dirtay u badnaa ku soo qaadatay xadiis laga wariyay nabigeena suuban ee Muhammad nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee kaasi oo ahaa in mu'miniinta tilmaamaha iyo sifahooda ay la mid yihiin hal jasad oo qura oo marka xubin ka mid ah xanuunsato jirka oo dhan xanuunsanayo. waxayna raacisay New Zealand idinka ay idinla murugoonaysaa hal aynu nahay. According to Muslim faith, the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam said, the believers in their mutual kindness, compassion and sympathy are just like one body. When any part of the body suffers, the whole body feels pain. New Zealand mourns with you. We are one. Jacinda Ardern, ra'iisul wasaaraha dalka New Zealand, inta la xasuusto madaxda reer galbeedka waa hogaamiyihii u horeeyay ee garab istaag heerkan leeg u muujisa dadka muslimiinta ah. waxaana falanqeeyaasha ay leeyihiin xilligan in dad badan oo dalkaasi ka mid ah ay qaadanayaan diinta islaamka sabab la xiriirta sida looga falceliyo